Assalaamu calaykum. Wax ka baro taariikhda waddanka Hindiya. Caasimadda waddanka Hindiya waa New Delhi. Qaaradda ay ku taalo waa Aasiya. Luqadda looga hadlo af Hindi af Ingiriis. Waxay ka xoroobeen gumaysigii Ingiriiska. Taariikhdu markay 15 Agoosto 1947. Hindiya ama Jamhuuriyadda Hindiya waa waddan ku yaala qaaradda Aasiya, waana waddanka labaad ee adduunka ugu dadka tirada badan. Waddanka Hindiya wuxuu xuduud la leeyahay wadamada kale ah Pakistan, Shiinaha, Nepal, Bhutan, Bangladesh iyo Burma. Dhinaca xeebahana wuxuu xuduud la leeyahay wadamada kale ah Sri Lanka, Jasiiradda Maldives iyo Indonesia. Waddanka Hindiya waxaa degan dad gaaraya in ka badan 1 bilyan oo qof, waxaana looga hadlaa luqado gaaraysa in ka badan 100 af. Hindiya waa waddanka afraad ugu ganacsiga badan adduunka. Hindiya waxay leedahay taariikh aad u dheer. Waddanka Hindiya wuxuu jiri jiray 1000 sano ka hor. Gumaysigii Ingiriiska ayaa gumaystay Hindiya iyo Pakistan. Markooda hore waxay ahaayeen hal waddan oo keliya, waxayna xornimada qaateen 1947. Waa markii ay Pakistan iyo Bangladesh ay ka go'day Hindiya. Pakistan waxay Hindiya uga go'day kala duwanaanshaha diinta. Hindiya waa waddan laga caabudo Hinduuga. Pakistan waa waddan Muslimiintu ay ku badan yihiin. Labada qaybood dagaalo badan ayaa soo dhex maray sanado badan. Kadib sanadka markuu ahaa 1948 ilaa 49, Hindiya iyo Pakistan waxay ka dhex jireen dagaaladaas oo sabab u ahayd kala qaybintii gobolka Kashmir oo luqadda ugu weyn looga hadli jiray oo ahayd af Hindi. Waddanka Hindiya waxaa laga caabudaa lo'da iyo waxyaalo kale. Hindiya waxay khatar ku yihiin film soo saarka iyo heesaha, waxayna ka mid yihiin kuwa adduunka ugu soo film soo saarka badan. Filmada Hindida waxaa badanaa adduunka looga yaqaanaa Bollywood. Waxay isku magac yihiin shirkadda loo yaqaano Hollywood, laakiin Bollywoodka waxay soo saartaa filmada Hindida, heesaha, filmada jacaylka. Filmada Hindida waxaa laga daawadaa wadamo badan oo ku yaala qaaradda Aasiya iyo Geeska Afrika, gaar ahaan Soomaalidu aad u xiiseysa filmada Hindida ah. Muuqaalkan intaas ayuu ku eg yahay. Muuqaalkiisa kale inta ku kulmi doono. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.